haddii aan ka hadlo arrimaha la xiriira Soomaaliya shacabka Soomaalida iyo qabiilooyinka Soomaaliyeed waa kuwa intooda badan degan dalka Itoobiya gudihiisa ma aha kaliya inaan darisnahay balse waxa aanu nahay dad walaalo ah waxaanu dhimanay nabadgelyada iyo Soomaaliya xushmad ayaanu haynaa Soomaaliya iyo horumarkeeda dibidhiskeeda Itoobiya wax kasta ayay ku bixisay heshiis safgarada ayaa Soomaaliland aanu la gaadhnay dhammaan dawladaha dariskana sidaas ayaanu u bandhignay dawladda Soomaaliya haddii ay tabasho naga qabto waxa ku filnaa hal duulimaad ama kulan qura oo hal saac socda waana wax aad u fudud maxaa yeelay annagu xumaan uma hayno Soomaaliya dawladda Soomaaliya in ay annaga nala hadasho waxay ka doorbiday in meelo badan ay wareegto oo ay naga dacwayso waxaan kula talinayaa lacagta khasaarinina dal kasta oo aan tagno lacag ayaan ku luminaynaa in lacag la khasaariyo micnaheedu ma aha wax wanaagsan waxa ka fiican in 1 kiiloomitir oo dadku lugeeyo la dhiso ama hal dugsi in aad Muqdisho ka dhistaan oo dadku ka faa'iideysto annaga in aadna dacwaysaan micna samayn mayso si aad annaga noo dacwaysaan uma baahnideen in aad dalal kale aadaan waxaad iman karteen Addis Ababa diyaar ayaanu nahay inaan annagu idinla hadalno marnaba ma rabno Soomaaliya oo burburta ama dhaawac uu soo gaadho baahida Itoobiya u qabto adeeg badeed waa arrin sharci ah oo aan muran la gelin karin taasina waxaanu u maraynaa waddo nabadgelyo ah oo wada hadal ku dhisan wadamada dariskeena oo dhan waxa ay leeyihiin adeeg badeed laakiin sida Itoobiya ma aha kuwa wax beerashada ku wanaagsan annagu waxa aan leenahay dhul carrasan ah iyo biyo ku wada ka badan si la mid ah waxaan kaga fiicannahay tamarta iyo cuntada haddii ay khudaarta noogu bedelaan biyo waxba kuma jabna waa arrin ganacsi waa mid faa'iido weyn gobolka iyo mustaqbalka carruurteena u yeelanaysa haddii arrintaasina loo diido tabashadeennu waxa ay noqon doontaa mid xilligeeda sugta wadamada dariska oo dhan waxaan ugu baaqayaa in aanu nahay dad walaalo ah xumaan idin lama rabno nabadgelyo in aan ku wada noolaano ayaan jecelnahay Itoobiya waa dal weyn oo shacabkeedu uu tiro badan yahay waa dal ay dhibaatadiisu idin wada saameyn karto ma aha wadan cadow idinku ah balse tabasho ayaanu qabnaa dhaqaalaha intaas leeg ee dalkani haysto haddii uu noqdo mid badaha ka xidhan waa dhibaato arrintani waa dana qaran waa in aan ka fakirno sidii aan ugu heshiin lahayn iyada oo aan qofna inaga dhiman aan iscayn oo aan dalal badan wareegooda lacag inaga khasaarin dhinac kasta uu guulaysto Itoobiya diyaar ayay u tahay ma dhici karto sabab tabashada Itoobiya ceeb ka dhigaysa tan dalalka kalena ay faa'iido u noqon karto dariskeena waxa aan u rajaynayaa nabadgelyo iyo in si wada jir ah aynu horumarno in aan weerarno iyo in aan dhibaatayno midnaba dooni mayno iyagana sidaasi oo kale in ay u fikiraan ayaa la gudboon sidii aan hore u sheegay Itoobiya waa dal weyn in dhabarka loo jeediyo oo dhaqdhaqaaq Afrika laga dhex abuuro suurtagal noqon mayso wadada kaliya ee furani waa in mid walba kan kale uu tanaasulo oo ixtiraamo geesteeda sidaasi ayaan qabnaa